Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka cabdi khayre soo dhowaada inaad noqotid qof ku tiirsan fikradaha dadka ama in badan dadka waxa ay sheegayaan oo kaliya qaata waxa ay dhabarjab ku tahay noloshaada dambe haddii aad doonaysid inaad qof guulaysta go'aanka noloshiisa ugu dambeeyana gaara muhiimadu waa inaad noqotaa qof inta badan go'aanka noloshiisa si uu si dhaba u gaara waxaa jiro inaan inta badan dadka la tashano inaan inta badan fikrado aanan fikradaheena ahayn aragno naga duwan naga qaab duwan qof walbaahi wuxuu inaga dhaadhicinayaa fikirka asigoo wato laakiin ma og tahay in adigu aad tahay shakhsi qofkaasuna yahay shakhsi qof walbaahina uu yahay qof goonidiis u taagan haddii aad tiraahdo qofkan noloshiisa ayaan raacayaa waxaad lumisay ama meesha ka baxaya hibadaadii dadnimadaadii sharaftaadii iyo karaamadaadii waa markii loo eego dhanka hibadaadii oo wax soo saarka ama fikirkaagii loo eego qofka inaad uga dayato khayrka wanaagga cilmigaad u daba fayshid oo haddii uu cilmigu dheeryahay aad cilmi ka raacatid laguma diidin balse waxaa la diidayaa mabda'a ama fikirka qofka inaad mar walba noqotid qof fikirka qof walba uu sheegayo qaata tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad baratid luuqad qof baa kugu yiri luuqadan maxaad ka faa'iidaysaa dalkaaga loogama hadlo dunida kale looga hadlana ma aadaysid uma socotid maxaad ka doonaysaa maxaad ku falaysaa sabab waayo qofkan asiga ma mustaqbalkaaga haya qofkan wuxuu doonaya inuu kaa dhaadhiciyo inaad waxba qabsan inaad waxba baran haddaad qofkaas taladiisa raacdid waxaad weynaysaa qayb muhiima oo noloshaada midaasi oo ah go'aanka noloshaada xigmad waxaa jirta ah dadka oo dhan la tasho balse taada ha ilaabin macnaha inaad qof walba la tashatid oo noqotid qof oo si gooniya go'aan u gaarana waa muhiim dadka la tasho oo warheelu say kula tahay maxay kula tahay ka waran sidee kula tahay waa wax la yaqaan laakiin go'aanka u dambeeya adaa iska leh waayo mar walba fikir cusub ayaad arkaysaa saamaynta ay fikraduhu leeyihiin oo qofka noloshiisa ay ku leeyihiin waxaa ka mid ah in qofku shay si uu arkayay si kale loogu bedelo tusaale ahaan buug ayaad soo qaadatay buuggan waxaad rabtay inaad cilmiga ku jiro ama wax gudihiisa inaad si dhab u ogaato saaxiibkaaga ayaa ku yimid wuxuuna kugu yidhi niyo buuggan wax jira maahan waa ebirkiis waa wax jira malahan waa waxa laga faa'iidayo malahan ogow buug kastaa akhriso waxaa macquula inaad cilmi badan faa'iido badan waxyaabo badan oo kaa maqan aa heshid qofkaas fikradiisa haddii aad raacdid waxaad noqonaysaa qof eega cilmiga buuggaas ku jira laakiin haddii aad tiraad u kaadi waan ogaanayaa waxaad fahmi doontaa cilmiga ku jira buuggaas fikradaha qaldan oo qof walbaa siduu doono inta wax kugu sharaxo oo aad u qaadatid si qaldan buu wax kugu sharaxaya qofkan ogow fikradan ka hadlay maaha fikradda saliimka ee wanaagsan qof baa kuu imanaya khayr buu kugula tiri waa wanaagsantaha taas kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa qofku inuu kaa dhaadhiciyo wax walba siduu u arka inay u saxan yihiin adna aad u qaadato inay waajib tahay hadda waa midaas in qofkan siduu wax u arka inaad u qaadato inuu waajib kaaga dhigo noloshiisa inuu noloshaada ku dabaqo laakiin qof inaad mabda'iisa qaadatid weliba mabda'iisaas oo kaa dhaadhacsiiyo asiga inay waajib kugu tahay xukun xagga alle subxaana watacaala ka yimid oo kale ayad qur-aana inta lagugu dul akhriyay ay tahay sideeda inaad u fulisid oo kale xukunkaasna uu kugu dhaco kale ayuu kaaga dhigayaa qofkaasi xukun ayuu kaaga dhigayaa sidaa darteed fikradaha dadka inaad qaadataa waa wax wanaagsan laakiinse waxaa ka wanaagsan inaad mar walba adigu noqotid qofka iska ilaaliya inuu qof walba fikirkiisa qaato dadkaa la tashanaysid oo mar walba ku xirnaanaysid ha noqdaan dad fikirkoodu maskaxdoodu saliim tahay wanaagsan tahay nadiif yihiin aad wax ka faa'iidaysid qofka markuu yahay qof maskaxdiisu nadiif tahay oo wanaagsan tahay wax badan baad ka faa'iidaysaa balse ogow qof qallafsan noloshiisu qallafsan tahay fikradiisu qallafsan tahay markaad ku dabaqdid noloshaada waxaad lumin doontaa heybadaada dadnimadaada sharaftaada iyo karaamadaada sidaa darteed waxaadba ka fogaataa inaad ku xirnaatid fikradaha inta badan qallafsan qof walbaa wuxuu leeyahay fikrad u gooniya fikradaada qaado horey ayaan kugu sheegay xigmadii ahayd dadka oo dhan la tasho laakiin ha ilaabin go'aanka ugu dambeeya oo ah midaada inaad adigu qofka la tashatid waa gooni go'aankana adiga iskale tusaale ahaan waxaad tiri niyow waxaan doonayaa inaan gabadhan aan muddada sanadkaa la socday guursado qofkan saaxiibka wuxuu ku
kugu leeyahay "Nio wax ma haysatid." Adigu waa go'aansatay inaad guursatid. Saaxiibkaana wuxuu kugu yidhi wax ma haysatid. Adiga waxaa laga yaabaa inaad ehelkaaga dhex geli kartid, inaad wax soo urursan kartid oo aad qaraabada dhex geli kartid. Laakiin ninkan asiga wuu xirxiran yahay, dad ma dhex geli karo, wuu xishoonayaa, mid kaloo asigu yahay. Sidaa darteed wuxuu doonayaa inuu fikirkiisa qaadatid. Kaasoo kale lama taageerayo, waxaa leeyahay adeer dee dalab raalli noqo ayaa leeyahay, ma lagaa yeelayo, waa la laabanaysaa fikirkaasi. Midda kale oo ah qofka inuu mabda' siduu u arko uu adiga kaaga dhaadhacsiiyo adna aad u qaadatid, noloshaadana aad ku dabaqdid, waxay ka qayb qaadataa burburka noloshaada. Waxayna hoos u dhac weyn ku keentaa inaadba noqotid qof wax curiya, wax soo saara, dadka la tartama. Faca inaad la tartantid ayay kaa reebaysaa. Hoos u dhac weyn ayaad dareemaysaa markaad noqotid qof ku xiran fikradaha dadka. Dadka waa lagu tiirsanaadaa, laakiin sidee loogu tiirsanaadaa? Si caqliyan ah ayaa loogu tiirsanaadaa. Waayo dadka ayaga dhan waa la isku xiray, waa kuwa isku baahan, baahida ibniaadamka Allah ka wada dhexaysiiyey. Haddana Ilaahay subxaana watacaala qof walba wuxuu siiyey heybad u gooniya. Heybadaada, dadnimadaada, karaamadaada, sharaftaada intaba ha ilaabin. Adiga waxaa lagu yidhi walaalkaaga mar walba kama maartid waa wehelkaaga ha noqdo. Laakiin laguma dhihin qofkan waa ku qasban tahay fikir walba oo la yimaado inaad qaadato. Sidaa darteed xor u noqo waxaad sheegaysid. Mabda' lagula yimid ha qaadan ilaa wuxuu yahay baar. Ku dabaqidda nolosha qof kale noloshiisa. Qof kale nolosha ku dabaqdid waxay ka dhigan tahay noloshaada oo burburisid. Noloshaada mar haddaad burburisidna qof kuu dhisaya ma jiro. Haddaad adigu dib isku soo xusuusatid, dib isku dhistin, macquul noloshaada inaad markaas dhisatid. Noloshaada adigu ma maamushid, Allah ayaa maamula. Insaanka iyo jinniga waxaa loo abuuray in Allah subxaana watacaala caabudaan. Waxaa loo sheegay xaqi, waxaa loo sheegay jidka lagu cadaab mutaysanayo, waxaa loo sheegay jidka lagu janno mutaysanayo. Allah subxaana watacaala waa caadil. Qofka haddii uu fikir kuula yimaado waa la qiimeeyaa, haddii uu kuu cuntamo waa la qaataa. Saaxiibkaaga haddii uu yahay mid caqliyan ah, qof nadiif ah, fikirkiisu wanaagsan yahay, mar walba wuxuu kuu raacin doonaa waa siday ila tahay. Ugu u fiirso, waa siday ila tahay. Haddii ay macquul tahay sidan ayay tahay, macquul inaysan ahayn. Laakiin midka kale wuxuu ku dhihi doonaa sidan iyo sidan ayay tahay. Kitaabada aad akhrisanaysid cilmi baa ka buuxa. Jimicsigaa samaynaysid jirkaaga u baahan. Wax walba oo doonaysid inaad qabatid laga yaabay nafsadaada inay ku kalsoon tahay. Laakiin nafsada saaxiibkaaga kale oo aad la tashanaysid fikirkiisa aad qaadanaysid kuma kalsoona, noloshiisa kuma dabiqi karo. Sidaa darteed fikirkiisa haddii aad qaadatid noloshaada ayaa burburin doontaa. Naftaada iyo nafteeda waxaan u dardaarmayaa Allah ka cabsiga. Naftaada waxaan ku leeyahay mar walba ka taxadar oo Ilaahay subxaana watacaala ku xirnow. Salaada, soonka, sadaqada badi, tasbiixda iyo taxmiida badi. Qof xiriiriya qaraabada noqo. Waalidkaaga xiriiri, ehelkaaga ka warhay, dadkaaga ka warhay, cimrigaaga lagu barakeyn, maalkaaga lagu barakeyn, xoolahaada lagu barakeyn, wax walba awlaadaada lagu barakeyn, xaasaskaaga lagu barakeyn. Jannada Allah helaysaa, raalli ahaanshaha Allah helaysaa, adduun iyo aakhiro waa liibaanaysaa. Naftaada iyo nafteeda mar kale waxaan u dardaarmayaa Allah ka cabsiga. Haddaad nagu cusub tahay hore noola joogin, nagu soo biro ka mid noqo walaalaha nagu xiran. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.